waan idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhawaada Somali Recap. maanta waxaan sharxi doonaa filim aad iyo aad u xiiso badan kaas oo lagu magacaabo Tommy Unlimited. haddaba waa kan filimkii daawo oo taxadarna. filimku wuxuu ku bilaabanayaa gabadh lagu magacaabo Tusiko. waa gabadh dhigata dugsiga sare, waliba waxay xubin ka tahay qaybta photographiga. waxay jeceshahay inay sawirto wax kasto ay aragto. maalin iyadoo iskuulka ka soo socota ay waxay hoos istaagaysaa guri dhismihiisa la wado. waxayna la joogtaa mid kamid ah saaxiibadeeda ugu wanaagsan taasoo lagu magacaabo Yoshi, iyadoo markaas sawir ka qaadaysa iyada. sikadiisa waxaa uga soo horbaxay Tommy oo ah Tusiko walaasheed. waxayna la socotaa wiil lagu magacaabo Toshia. Tusiko waxay jeclayd wiilkan, laakiin walaasheed Tommy ayaa badanaa la socota kamana daba hadho. Tommy waxay Tusiko ka walaala yihiin xagga aabaha. Tommy ayaa walaasheed u yeeraysaa iyadoo ka dalbanaysa inay sawir ka qaado. marka ay walaasheed taagan tahay dhismaha hoostiisa, Tusiko ayaa bilaabaysa inay sawir ka qaado. isla markaa Tusiko ayaa Tommy ka qaadaysa sawir fool xun, wayna xanaaqaysaa. marka ay xanaaqdo waxay dareemaysaa inay fahantay inay xanaaqday. isla markiiba si lama filaana waxa guriga dhismuhu ka socday ka soo dhacaya bir, taasoo qoorta kala goynaysa Tommy. Tusiko way yaabtay wayna argagaxaysaa. kamaradii ay sawirada kaga qaadaysay ayaa dhulka kaga dhacaysa. isla markaana Tommy indhaheedu waxay isu bedelayaan casaan. dhacdadaas kadib Tusiko habeen iyo maalin way ooyeysay. sanad kadib Tusiko maalin iyo habeen toona hurdo fiican maysan helin. waxaa la gaaray sanad guuradii dhimashadii Tommy. waalidka ayaa jaraya keeg xasuusa. si lama filaana albaabka ayaa la soo garaacay. Tusiko ayaa aadaysa albaabka si ay u soo furto, waxayna arkaysaa wax ka yaabiya iyada. waxaa albaabka taagan Tommy oo ah walaasheedii dhimatay. dib ayay u soo cararaysaa iyadoo naxsan. aabaheed ayaa aadaya, isaga ayaana ka soo furaya. mise waa gabadhii Tommy ee horey u dhimatay. waalidka ayaa yaabay, waxayna isku dareen farxad iyo oohin iyagoo ku dhegdhegaya maadaama gabadhoodii oo dhimatay ay u soo laabatay. mar labaad ayayna ku soo dhaweynayaan xaafadda. Tommy waxay sheeganaysaa inay gaajoonayso. marka keega la siiyo waxay waalidkeeda ka dalbanaysaa inay cunto fiican karsadaan maadaama keegan uusan cunto fiican u noqonayn. intaa kadib indhaheedu waxay ku dhacayaan sawirkaasoo intaysan dhiban ay ka qaaday Tusiko, kaasoo yaalla horteeda. sawirkii ayayna soo qabanaysaa kadibna ay ku qarxinaysaa feer. habeennimadii Tusiko waxay aadaysaa musqusha, mise waxaa ku jirta walaasheed Tommy. waxayna ku dhahaysaa kaale ilo qubayso. subaxii xigtay Tusiko ayaa soo galaysa qolka cuntada. waxayna arkaysaa aabaheed oo ursanaya timaha Tommy. markay weydiiso aaba maxaad sidan ka wadaana, wuxuu sheegayaa inuu gabadhiisa xiisaynayo. wayna la yaabtay habdhaqankan, kadib way iskaga soo baxaysaa. marka ay banaanka u soo baxdo Tusiko waxay arkaysaa hooyadeed oo gubaysa dhammaan sawiradii ay Tommy kula jireen. marka ay ka joojiso inay gubto, waxay hooyadu ku andacoonaysaa in Tommy ay ka dalbatay inay gubto. Tommy ayaa isla markaas si lama filaana u soo istaagaysa goobta, waxayna iyada iyo Tusiko isku qabsanayaan sawir. inta ay dagaalamayaan Tommy ayaa gidaar lagu qarxiyay. aabaha ayaa aad uga xanaaqay Tusiko. sideebad u taabataa gabadhan intay dhimatay soo noolaatay? wuxuuna ku garaacayaa fiilo, kamana joojinayo ilaa Tommy ay ka codsato inuu iska daayo. Tusiko oo dhaawacan ayaa aadaysa qubays, balse Tommy ayaa uga horeysa tuubada maydhashada. Tusiko waxay u sheegaysaa walaasheed inay dareemayso dambiile tan iyo dhimashadeedii. si lama filaana leedhka ayaa bilaabaya inuu damdamo, halka Tusiko ay kor u eegaysa leedhka iyadoo argagaxsan. dhowr sekin kadib Tommy ayaa qoorteeda timaha ka qaaday, balse si lama filaana waxay ku aragtay carab qoorteeda ka soo baxaya. isla markiiba Tusiko ayaa riixday Tommy, kadibna u carartay dhanka waalidkeeda. si kastaba haatee ma rumaysanayaan waalidkeedu marka ay u sheegto in Tommy ay tahay horor. isla markaasna Tommy ayaa hadalkooda soo dhex gashay oo dhahday gurigiina waan idinka baxayaa, mana sii joogayay. aabaheed ayaa ku dhegdhegay oo leh aabi joog, balse way diidaysaa. waxayna samaynaysaa inay qaadato dhammaan lacagtii guriga taallay. markuu aabaheed ogaado wuu xanaaqayaa, wuxuuna la dhacayaa mindi, wuuna dilayaa. isla markiiba wuxuu ka qoomameynayaa inuu dilo gabadhiisa. qoyska ayaa meydka u qaadaya musqusha si ay u tuuraan, balse marka ay Tusiko fiirinayso Tommy ayaa indhaheedu dhaqaaqayaan. subaxii xigtay way soo toosayaan. marka ay hooyadeed quraacda siinayso gabadheeda, si lama filaana waxaa cuntadii ku soo dhacaya cad yar oo ka mid ah jidhkii Tommy. marka ay iskuulka aado Tusiko, Yoshi oo ah saaxiibadeed waxay ogaanaysaa inay wax ka khaldan yihiin, balse marka ay weydiiso waxa ka khaldan ma sheegayso. macallinku wuxuu soo bandhigayaa arday bedel ah, mise waa Tommy. Tusiko ayaa argagaxday. kuwa kale galaaska kula jira uma eka inay garanayaan inay walaasheed tahay. marka break time-ka lagu jiro, Yoshi ayaa weydiinaysaa waxa ku dhacay Tusiko, balse waxba uma sheegayso. intaa kadib waxay furaysaa weelkii cuntada ku jirtay. si lama filaana Tusiko ayaa arkaysaa madaxa Tommy, kaasoo ka muuqda gudaha weelka. intay kacday ayay banaanka u carartay si ay u soo tuurto. kadib Yoshi ayaa timid goobtii ay ku tuurtay.
waxayna maqlaysaa shanqar taasoo ka baxaysa gudaha qashinka marka ay hubiso waxay helaysaa weelkii cuntada oo leh wejiyo badan oo Tommy ah way argagaxaysaa oo waxay isku dayaysaa inay cararto balse wejiyadan yaryar ayaa fidinaya carab aad u weyn oo qabanaya iyada kadibna meesha ku dilaya marka guriga lagu soo laabto aabaha ayaa kaligiis jooga salad yar oo guriga dhex taala waxa ka soo baxaysa Tommy madaxeeda oo go'an aabaheed ayay gargaar weydiisanaysaa marka hore aabuhu wuxuu u malaynayaa inay tahay dhalanteed balse Tommy ayaa ugu dambeyntii cadaysay inay rabto in qof kamid ah familka ay cunto iyadoo ugu dambeyntii qeexday inay rabto inay disho xaaskiisa marka iskuulka la joogo Toshiko waxay kulmayaan Yoshi wuxuuna ku dhahayaa aad baan uga xumahay geerida ku timid walaasha yaa u sheegay inay nooshahay wuxuuna u sheegay inay bari leeyihiin ciyaar wuxuuna ka dalbaday inay sawiro uga qaado naadigiisa waxa la gaaray waqtigii ciyaarta Toshiko waxay sawiro ka qaadaysaa kooxda si lama filaana Tommy ayaa ka soo muuqatay hoolka Toshia wuu naxay markuu arkay inay nooshahay laakiin way iska indhatirtay isaga nin ayaana u soo dhaqaaqay xaggeeda si uu la dagaalamo isla markiiba ninkii intay qabatay ay dhulka ku qarxisay inta kadib Toshia ayaa weydiinaya sida ay u soo laabatay Tommy balse Tommy uma eka mid sheegaysa sida ay u soo laabatay iskuulka kadib Toshika waxay Tommy weydiinaysaa yaa tahay adigu balse waxay odhanaysaa iga dabahar markay guriga ku soo laabato Toshiko maba oga in hooyadeed la dilay aabaheed wuxuu haystaa shay kaasoo sheegaya inay tahay daawo Toshiko wax badan kama aysan fakirin waxayna aaday qolkeedii aabaheed ayaa daawo siinaya madaxa Tommy isla markaana Tommy waxay aabaheed ka codsanaysaa inuu soo jaro afka hooyada oo ay mar hore dileen kadibna uu ku qoodiyo iyada isna wuu samaynayaa wax kastoo ay ka dalbato wuuna soo jarayaa maalinta xigta Toshia ayaa iska indhatiraya Toshiko oo gacmaha qabsanaya Tommy Toshiko oo qalbi jabsan ayaa ka cararaysa meeshii cabaar kadib waxay joogtaa istuudiyaha waxaana ku soo dhawaanaysa Yoshi oo ah gabadhii xilliga ay break time-ka ku jireen dhimatay taasoo soo noolaatay haddana wariyaa badana indha yartani Toshiko ma oga inay dhimatay marka ay wax uga sheegayso arrimaha haysta Toshiko waxay Yoshi u sheegaysaa inay normal iska tahay waxayna tusinaysaa carab garabkeeda ku yaala kaasoo u eg qaabkii Tommy yaabkeedii ayaa yaab kale ugu darsamay wayna ka cararaysaa goobtii waxayna soo gashay qolkaas ay ku jiraan wiilal kadibna ay u sheegaysaa wax baacsanaya markay codsigeeda aqbali waayaan way iskaga laabanaysaa isla markiiba waxa u soo galaysa Yoshi oo weydiinaysa iyada kadib kooxda ayaa arkaysa carab ka hadlaya qoorteeda isla markaana kooxda ayaa qabanaysa qorsheynayana in la dilo marka xigta waxaan aragnaa Toshiko oo dhex ordaysa dhismaha kadib waxay soo galaysaa qol mise waa Toshia oo mid ku garaacaya Tommy sidii mudada uu ugu waday waxay isu bedelaysaa dhiig marka ay Toshiko u yeedho Toshia wuxuu ka raali gelinayaa inuu dilo walaasheed Toshiko ayaa ka codsanaysa inuu ka cararo meesha balse wuxuu ku adkaysanayaa inuu halkan joogo si lama filaana dhiig ayaa bilaabaya inuu dhaqaaqo isla markaana dhiigga dhexdiisa waxaa ka soo baxaya Tommy oo soo noolaatay mar kale Tommy maba moodid in la dilay halka Toshiko ay fiirsanayso horarkan dib aan ugu laabano qolkii kale kooxdii waxay go'aansadeen inay madaxa ka gooyaan Yoshia kadib waxay soo qaadanayaan maqas aad u weyn Yoshia waxay ka codsanaysaa inay iska dhaafaan halka carabkeedii qoorta kaga yaalay uu leeyahay dila ugu dambeyntiina qoortii ayay ka jareen intaa kadib jidhkii ay qoorta ka jareen oo madax la'aan ah ayaa kacay kadibna banaanka u cararay meel kale Tommy iyo Toshia ayaa wada jooga halka Toshiko intay xanaaqday ay dhabarka ku dhufatay Toshia waxayna rajeynaysaa in Tommy ay dhimato iyadana ay bir kaga dhufanaysaa wajiga intaa kadib jidhkii Tommy ayaa bilaabaya inuu qarxo oo isu bedelo dhiig isla markaasna way carari waxaana eryanaya Yoshi oo bilaa kur ah waxaana isku dhex baacsanayaan iskuulka dhexdiisa inta ay ceyrsanayso waxay arkaysaa kooxdii wiilasha ahaa oo dhammaantood dhintay wayna iska indhatiraysaa oo cararaysaa haddana ila waa qof la eryanaye kadib qol ayay isku soo xidhaysaa waxayna u malaynaysaa inay ammaan tahay bigbig iyo shanqar naxdin leh ayaa bilaabmaya kadib shay yar ayaa waxaa ka soo baxaya qoortii Tommy waxay ku soo istaagaysaa lugo timale si lamida timaheeda waxaa ka wada laalaada kurar wajigeeda ah dhan kale Yoshidii baacsanaysay ayaa soo galaysa iyadana qolkii waxayna ku hareeraysan yihiin Toshiko wayna ooyaysaa baqdin awgeed kadib mid iyaga ka mid ah ayaa u soo dhawaanaya si lama filaana Toshiko ayaa soo kacday waxaan maanta oo dhan fiirsanaynay riyay ahayd balse riyadani waa mid rumowday kadib markay soo kacdo way quraacanaysaa waalidkeeda ayayna uga sheekaynaysaa waxa ku dhacay dan way ku qosqoslayaan isla markaas lama filaana aabaha ayaa wuxuu bilaabayaa inuu cuno timo way naxday waxayna u carartay xagga hooyadeed si ay u caawiso laakiin hooyadeedna ma dhaantay isaga waxayna aragtay hooyadeed oo madaxa rogan labada waalid ayaa baacsanaya Toshiko iyadoo Toshiko isku dayaysay inay baxsato waxaa la keenayaa qolkaas oo u yaalo madaxa Tommy intaa kadib waxaa soo baxaysa Tommy oo u eg dhurdaxanyo waxayna dilaysaa aabihii in yar kadib haddana waxay dilaysaa hooyadii isla markaa Toshiko ayaa si degdeg ah u fuulaysa jaranjarada waxayna helaysaa Toshia oo isku dayay inuu hoos u riixo balse iyada ayaa ka awood badanaysa oo hoos u riixaysa kadibna jaranjarada ayuu hoos ugu sii dhici kadib
Tommy ayaa markaa dilaysa isagii sikimada gudahood Yoshi ayaa sidoo kale soo muuqatay waxaana isku dayaysaa inay iyaduna sidoo kale samayso oo ay hoos u riixdo wayna kaga guuleysatay inay hoos u tuurto waxaana cunaya cayayaankii Tusiko waxay isku dayaysaa inay xidhato qolkan balse ma xidhmayo sababtoo ah xagga dambe waxa ka taagan Tommy ayaa markaa ka soo muuqatay albaabka si kastaba ahaatee si ay uga tagto waxay ka qaadaysaa sawirro abaar kadib ayay hoos u soo degaysaa waxaana la hadlay Tommy oo markaas weji weyn ah waxayna markan u muuqataa inay heshiiyeen intaysan qolka ka bixin Tusiko waxa ku soo wareegaysa Tommy maalinta xigta waxa la tusayaa Tusiko oo ka baxaysa guriga kadibna aadaysa magaalada markay suuqa dhex marayso waxay arkaysaa qof kasta oo leh wejigii Tommy aakhirkii waxay la kulmaysaa qof aysan aqoonin kadibna way raacaysaa muuqaalka ugu dambeeya filimka waxa la tusayaa Tusiko oo mindi lagu garaacayo si naxariis darro ayuuna u dilayaa filimkiina wuxuu ku dhamaanayaa muraayad laynaga dhex tusayo wejiga Tommy walaalaha ayaa isla qoslaya markan saas ayuuna markaa filimkii ku dhamaaday haddii aad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan janaalka subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan la gare si markaa dad badan uu gaaro waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga ku kulmayno waxaad kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh